Soomaalida diinteena Islaamka iskaga baxaysa ayaa soo badatay. Bal muuqaalkan dhexdiisa waxaan ku falanqayn doonaa Kiristanka, Yuhuudda, mulxidnimada iyo Islaamka kee waaye midda saxda ah. Waxaan ku jirnaa taxanaheeni halaag. Qaybtaana waa qaybtii 9aad. Hal qayb unbaa ka dambaysa. Qaybta 10aad ee ugu dambaysa waxay ka waramaysaa aafada siigada. Insha Allah waan soo gelin doonaa beri. Intaan mawduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like inoo saar. Sababtoo dhiirigelin bay noo noqonaysaa. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Waagii hore Soomaali haddaan nahanay gaaladu aad bay inoogu yarayd. Laakiin maanta dad badan oo diinteena ka baxaya baa soo batay. Sababta iyo micnaha ay uga baxayaan waa wax haddii dadka cilmiga leh loo sheego ay xalin karaan. Ama waxay diinta uga baxaan micnaha Quraanka iyo axaadiista ayaa si fiican u fahmin oo ay khalad ka fahmeen. Ama waxay diinta uga baxaan dad kale oo gaalo ah wixii ay ku akhriyeen oo been ah bay run u maleeyeen. Markii wax lagu sheego waxa fiican inaad iska baarto waxa kan aad hubisid baa fiican. Goortaasna aad raacid diinta saxda ah. Qof walba oo diimaha baara wuu ogaan doonaa in diinta Islaamka ay tahay diinta kaliya ee saxda ah ee maanta dunida taala. Dadka qaarna waxay diinta uga baxaan qof kale oo muslim ah baa dhib ku sameeyay, sidaa daraaddeed bay diinta uga baxaan. Siday doontaba ha ahaatee, haddaan muslimiin nahanay, qofkii diinta ka baxa ayay midkii soo gala labadoo dhib inaguma hayso. Haddii uu soo galo qof diinteena Islaamka, isagaa naxariis iyo wanaag soo doontay. Haddii uu ka baxana, isagaa hoog iyo cadaab doontay. Qofkii Ilaahay hanuun u qoro, isagaa diinteena Islaamka imaan doona. Qofkii uusan u qorinna, Ilaahay shartiisa inaga xijaabo. Haddaba dadka Soomaaliyeed ee ugu badan ee diinteena ka baxa waxay aadaan badankooda Kiristanka iyo mulxidnimada. Bal aan xoogaa yara falanqayno. Mulxidnimada aan u soo laabanno. Dadka diinta Kiristanka galay baan wax yar u sheegayaa. Diimaha samaawiga ee maanta dunida taala waa Islaam, Kiristan, Yuhuud. Saddexda diimood ee aan soo xusay, laba ka mid ah ayaa diin ahaan u dhaqanta. Waa muslimnimada iyo Yuhuudda. Sababtaan u dhahayna waan kuu caddayn doonaa. Horta Islaamka halka inoo dhig. Waa diinta kaliya ee xaqa ah ee maanta dunida taala. Iyada halkaa dhig. Si la mid ah, diinta Yuhuudda waa diin in badan oo ka mid ah ay saxan tahay. Khaladaad badanna way ku jiraan. Laakiin qaybo badan oo saxan baa jira. Ha noqoto taariikhdooda qayb ka mid ah. Xitaa annaga haddaan muslimiin nahanay, taariikhdooda waan soo daliishanaa oo waan ka sheekaysanaa. Waayo Yuhuudda waa qabiilka kaliya ee nebiyada ugu badan laga soo saaray. 25 nebi ee Quraanka lagu sheegay, 14 ka mid ah reer Bani Israa'iil baa laga soo saaray. Ku laaban maayo muuqaal horaan ka soo diyaariyay oo aan waliba xisaabinay 25 nebi ee Quraanka lagu sheegay inta nebi ee reer Bani Israa'iil ka ah. Horaan u xisaabinay. Nebiyada 25 ah ee Quraanka lagu sheegay kaliya ma jiraan, waa ay ka badan yihiin. Nabigu wuxuu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam in ay nebiyada gaarayeen 124,000 oo nebi. Marka reer Bani Israa'iil nebiyo badan baa laga soo saaray. Taariikhdoodana way qori jireen. Walow qaybo badan oo been ah ay ka buuxiyeen. Laakiin nabigeena waxa uu yidhi sallallahu alayhi wasallam, waxyaalaha ay Yuhuuddu idiin sheegaan, kuwaasoo diinteena Islaamka aysan ka hadlin, Islaamkeenana aysan ka hor imaanayn. Haddii ay wax idiin sheegaan, falaa tusaddiquuhu walaa tukadibuuhu. Hana beeninin hadhihinina waxaasi waa been. Hana rumaysanina hadhihina waxaasi waa run. Laakiin nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ka sheekaysta. Waxyaalahaasina waxaa loo yaqaanaa Israa'iiliyaad. Israa'iiliyaadkana waa laga sheekaysan karaa. Mana beeninayno, mana rumaysanayno. Micnihii nabiga waxa uu la jeedaa Yuhuuddu waxyaalaha ay sheegaan. Waxa ay sheegayaan haddii diinta Islaamka ay ka hor imaanayso, isaga tag waxaasi waa xaaraane la qaadan maayo. Laakiin waxa ay sheegayaan haddii Islaamka aysan ka hadlin uu ka aamusay, waxa ay sheegayaan nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, falaa tusaddiquuhu walaa tukadibuuhu. Hana beeninina, hana rumaysanina, laakiin ka sheekaysta. Sax, diinta Yuhuuddu waa baadil. Qofkii diinta Yuhuudda gala wuu gaaloobayaa, Islaamku waa ka baxayaa. Laakiin runta marka laga hadlo, diinta Yuhuuddu waa ay dhaantaa diintan Kiristanka ah. Sababta aan sidaa u leeyahay waxa weeye,
kiristanku ma ahan diin caadi ah oo lagu dhaqmaayo iyadoo baadil ahayd bay haddana diin jira aysan ahayn, waayo dadkoodu kuma dhaqmaan xadaaradda iyo tiknoolajiyaddu meesha ay marayso ayay hadba u raacaan. kitaabkooda waxa uu faro kuma dhaqmaan. in badan oo ka mid ah kiristanka khaniisyo ayay noqdeen. kitaabka ay kiristanka haystaan khaniisnimada waa laga reebo oo xaaraan bay ka tahay, laakiin iyagu way ku dhaqmayaan. marnaba ma ahan dad xitaa diintooda qiimeeya. mararka qaar waxaa dhacda xitaa diintooda ayay caayaanba. mid kiristan ayaa maalin dhexdaas wuxuu dhahaya oo caan ahaa, dadkayga kiristanka waxaan u sheegayaa in ay u dhaqmaan oo ixtiraamaan diintooda sida islaamka ay u ixtiraamaan nebigooda iyo diintoodaba. diinta kiristanka in aad iyo aad u badan baa la bedelay, xitaa yuhuuddaa bedeshay. waxay dhahaan kiristanku ilaahay waa halo, haddana 3 u qaybsama. waxyaalo aan macquul ahayn, aan maskaxda geli karin bay dadka ka dhaadhicinayaan. xitaa dadka kiristanka ah qaarkood way ku qanci la'yihiin kiristankooda. khaladaadka ka buuxa waxay sababtay in dad badan ay diintaasi ka soo baxaan. sababta dadka kiristanka ah markii ay islaamka soo galaan oo islaamka loo sharaxo, sababta islaamka u qaataan waxa weeye waxay ku qanci la'yihiin kiristanka waxa ku qoran oo iska hor imaanaya. inta badan waa iska hor imaanaysaa. diinta islaamkana iska hor imaamayso, iyagoo kumanaan xadiis iyo kumanaan aayado ay haystaan, haddana aayad ka hor imaamayso, xadiisna aayad ka hor imaamayso. ma ogtahay diin isku sheegaan kiristanka inay aaminsan yihiin 4 kitaab ama 4 gosbol? micnihii 4taa kitaab waa kitaabada ugu muhiimsan ee xaggooda. sida annaga qur-aan iyo xadiis inoogu muhiimsan yihiin ayaa iyagana waxaa ugu muhiimsan kiristanka 4taa kitaab ama 4taa gosbol. 4taa kitaab ay aaminsan yihiin. kitaab kale oo lagu shaneeyo baa jira. kitaabkaas waxaa la helay sanadkii 1945. wixii ka dambeeyey 1945 5 kitaab ama 5 gosbol bay aaminsanaayeen. waxayna kitaabada kale yihiin Mark, Luke, John iyo kitaabka dhowaan la helay 1945 oo loo yaqaano Thomas. kitaabkaas Thomas ee 1945 la helay waa kitaabka ugu qadiimsan uguna saxiixsan 4 kitaab ee kiristanka aaminsan yihiin. kitaabkaas Thomas lama bedelin, micnihii waxaa la isdhihi karaa waa kan ugu saxiixsan 4 ama 5 kutubba. kitaabkaas Thomas waxaa la qariyey oo meel lagu aasay inta uusan Nabi Maxamed dhalan sallallahu alayhi wasallam ka hor. haddana waxaa la helay oo meesha laga soo saaray 1945. kitaabkaas waxa ku qoran iyo waxa diinta islaamka ku qoran badankooda way iswaafaqayaan. sow mucjiso ma ahan kitaabkaas Thomas iyo diinteena islaamka iyagoon isi soo gaarin, laakiin qaybo badan oo ka mid ah way iswaafaqsan yihiin. taasi waxay kuu caddaynaysaa saxiixnimada diinteena islaamka. midda kale, kitaabkaa la helay Thomas wax badan oo kiristanka ay sheegaan kuma qorna isaga. kitaabkaasi kuma qorna in Nabi Ciise uu ilaahay ahaa sida kiristanka aaminsan yihiin. sidoo kale kitaabkaasi ma qoraayo in Nabi Ciise la dilay sida kiristanka aaminsan yihiin. micnihii waxaa kitaabka kiristanka ku qoran isaga kuma qorna oo waa uu ka hor imaanayaa. marka kiristanka wax diin ahaan loo aamino ma ahan, waa isbadbadashaa. casriga hadda meesha ay marayso ayay la jaan qaadaa. kiristankii 1000 sano ka hor noolaa iyo kuwa maanta nool iskuma dhowa oo isku wax xitaa ma aaminsana. kiristankii hore khaniisyada waa ay dili jireen, laakiin kiristanka maanta nool iyagaaba khaniisyo u ololeynaya oo xuquuq iyo wixii la doono u sameynaya. aan eegno mulxidnimada iyo dadka aaminsan inuusan ilaahay jirinba. horta mulxidnimadu waa wax iska cad in ay khaldan yihiin. qowmiyad adduunkan soo martay ma jirto ilaa diin bay aaminsanaayeen. diintaasi khalad ha noqoto ama sax ha noqoto. midda kale, magaalo maanta adduun ku taala oo aan macbad lahayn, meel wax lagu caabudo, ama ha noqoto waxaa la caabudayo wax baadil ah iyo wax xaqa ha noqoto, kolley magaalo wax lagu caabudo aysan ooleyn maanta adduunka ma jirto. taasi waxay noo caddaynaysaa in ay diin jirto oo diin la aaminsanaado. laakiin mulxidnimadu waxay ku leeyihiin wax diin ah maba jirtoba, shay walba waa iska samaysmeen. hadalkaas waxaan u arkaa hadal ciyaaleed. haddaad ku tirahdid moobilkaaga ma iska samaysmay, wuxuu ku leeyahay maya ma samaysman ee qof baa sameeyey. moobilkii yaraa baad aaminsan tahay inuu qof sameeyey,
sidee adduunkan quruxda badan, jawiga isbedelaya, cirka oo roob ka soo da'ayo, dhulka waasaca ah iyo buuraha dhaadheer, sidee macquul ku noqon kartaa inay iska samaysmatay? Bal eeg baddan kalluunka iyo noolayaasha kala duwan ay ku nool yihiin. Sidee ku leedahay waa iska samaysmatay? runtii wax macquul ah ma ahan. Mulxidiintu waxay aaminsan yihiin sayniska, laakiin saynisku waxa uu caddeeyey in Ilaahay sameeyey cirkan iyo dhulkan uu jiro uusan iska samaysman, waayo wax walba u caddaadeen. Waxa uu caddaatay in dhulka uu sii korayo uu sii weynaanayo. Sababtaa daraaddeed waxay dhaheen wax walbo sii korayo oo sii weynaanaya xaqiiqatan meel uu ka bilaabmay baa jira. weliba qof bilaabay oo ku khasbay inuu dhulka fido, qof bilaabay baa jira. dee qofkaasna waa iska caddahay, qof aan Ilaahay ahayn ma bilaabi karaba. annaga haddaan islaam nahnay waan aaminsanahay in uu Ilaahay dhulkan iyo cirkan iyo wax walba abuuray. laakiin mararka qaar waxaan ku qoslaa mulxidiintan dhahaa dhulkan isaga iska samaysma, cidna ma samayn. waa sida ka waran hotel haddaad soo gashid oo aad qol ka kiraysatay hotelkaas. markaad hotelka iridka ka soo gashay, albaabka markaad maraysa waxaa aragtay roogii qolkaaga gurigaagii yaalay iyo roogga hotelka qolkaaga yaala inay isku eg yihiin. sariirtii gurigaaga taalay iyo sariirta hotelka yaala inay isku eg yihiin. xitaa harqadda barkinta la geliyo, kii gurigaaga yaalay iyo kan hotelka yaala way isku eg yihiin. miiskaad eegtay miiskii gurigaaga yaalay iyo kan waa isku eg yihiin. xitaa kalarada miiska waa isku mid, kii gurigaaga yaalay iyo kan hotelka yaala. saqafka kore baad eegtay, layrka iyo marooxadda hotelka ku yaala iyo kii gurigaaga yaala isku mid bay noqdeen. goortaas yaab baa kaa soo haray, waad aamini weyday. koobadiinkaad eegtay, koobadiinka gurigaaga yaalay iyo kan isku mid bay noqdeen. markaas waxaad tiraahday in ay isku mid yihiin baa maanta eegayaa, koobadiinkan furayaa. markii aad furtay koobadiinka gurigaaga yaala wixii ku jiray baa kana ku jira. adoo yaaban baa istiri bal suuliga gal oo soo qubayso. saabuuntii iyo shaambadii gurigaaga yaalay baa suuligaana ku jira. adigoo naxsan baa soo carartay. ninkii meesha fadhiyay baa u timaad, waxa ku tiraahday qolka aad gelisay alaabta ku jirtay iyo qolkaygii aan ka imaaday isku mid waaye, maxaa samayseen? markaasuu ninkii ku yiraahday waxaan oo dhan si kadis ah bay ku dhacday. adigu ma aaminaysaa inay kadis ku dhacday? waa may, kollay wax baa jira baad aaminaysaa, sababtoo ah inuu qofku yaqaano oo kale inuu alaabta la mida soo gaday ama wax kale inuu jiro baad aaminaysaa, laakiin aamini maysid inuu si kadisa ku dhacay. bal ka waran adduunkan diyaarsan oo u diyaarsan inaan annaga ku noolaano. weliba meerayaasha kale Ilaahay inooga soocay. meerayaasha kale laguma noolaan karo, laakiin meeraha dhulka aan ku noolnahnay waa meero loogu talagalay inuu bini'aadam ku noolaado. ka waran hadduu qof kuu yimaado uu ku dhaho adduunkan noocaa ah oo Ilaahay inoo diyaariyey si kadisa ku samaysmeen, isagaa iskiis isku sameeyey, ma aaminaynaa? may aamini mayno. midda kale Soomaalida gaalowda hal wax baan ku nacay. markii uu diinta islaamka uu ka baxo ama mulxid ama kristan wuxuu doono ha noqdee, markaas buu bilaabayaa in uu faafiyo diinta uu galay. dadka kale ee ajaanibta ah markay diin ka baxaan, diinka la galaan, badankooda waa ay iska aamusaan, diintooda iskaga ekaadaan. laakiin Soomaalidu maalintaas bay bilaabayaan in diinta kale ay faafiyaan. heerka gaalnimada Soomaalida aad bay usoo badansaa runtii. Ilaahay shartooda ha inaga hayo. taxanaheennii halaag qaybta xigta waxaan kaga hadli doonaa insha Allah ee qaybta 10aad ee ugu dambaysa aafada ay siigadu leedahay. insha Allah bari baan soo gelin doonaa. intaas ayuu muuqaalkeena ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.